madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo xubno uu hogaaminayay ayaa maanta waxa ay booqdeen deegaanka la yiraahdo Godoon ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Madaxweynaha waxa ku welinayay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Galmudug waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay dadka deegaanka oo isugu jiray cuqaal iyo waxgarad iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Galmudug. soo dhaweynta kadib madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa uu khudbad dheer uu ka jeediyay goob barxad ah oo ay isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan waxaana khudbadiisu ay ahayd mid uu ku doonayay inuu ku qanciyo dadka ka soo jeeda deegaankan waxaana uu u ballan qaaday in wax waliba oo ugu maqan dhanka maamulka Galmudug ay ka heli doonaan. xubnaha labada gole ee dawladda Galmudug salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka dhalinyarada gabdhaha qaybaha kala duwan ee bulshada ballaaran ciidamada qalabka sida fanaaniinta kooxaha cayaartooyda saxaafadda dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan qof walba darajadiisa iyo magaciisa aan ku salaamaynaa waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin wanaagsan reer Gadoon. waxaan runtii mahad ballaaran u celinaynaa bulsho weynta reer Gadoon sida aad iyo aadka u qiimaha badan noo soo dhaweyseen dowladnimada iyo niyad samida iyo kalsoonida nalagu soo dhaweeyay kadib waa dhageystay dalabkii iyo codsigii reer Gadoon waxaan leeyahay reer Gadoon xuquuqda aad dawladda ku leedihiin oo ka mudan tihiin waad helaysaan haddii Allah awoodda ogolaado. reer Gadoon runtii waxaa ii muuqata warbixintii laga bixiyey iyo deegaankii Gadoon say isu leeyihiin si weyn baan ugu qanacsannahay. Gadoon iyo sida ay astaahisho iyo waxa ay mudan tahay aad iyo aad baan ugu qanacsannahay runtiina ay noo qanciyeen. reer Gadoon hadday tahay degmadii iyo hadday tahay xuquuq kale oo dawladda aad ku leedihiin intaba waad helaysaan. laga bilaabo maantay wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay waajibaadkiina ka soo guta soo marsiiya hanaankii sharciga ahaa ee loo marayay degmooyinka.